ciidanka BMBF ee qaybta ka ciidamada difaaca Puntland ee fulinaya howlgalka Hillaac ee ka ciribtirka deegaanada Puntland kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish ayaa habeennimadii xalay ilaa maanta fuliyay howlgallo qorsheysan kuwaas ay ku bartilmaameedsanayaan argagixisada tamarta yar ee ku dhuumaalaysanaya meelo ka mid ah buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. ciidamada BMBF iyo ciidanka kale ee dawladda sidoo kale waxay saaka hirti waabir howlgallo gaar ah ka sameeyeen deegaanada Tuulo Ciise, Raybe Diriqle, Dooxa Gibin iyo guud ahaan deegaanada buuraha iyo tugaga ku teesan magaalada Timirshe ee degmada isku shuban. agaasima ku-xigeenka ciidanka BMBF Mudane Maxamuud Silaal Cumar iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ee taliyaha howlgelinta ciidanka BMBF General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac iyo taliye ku-xigeenka howlgelinta gaashaanla sare Maxamuud Abshir Ismaaciil Leewar ayaa kulamo wacyigelin iyo wada shaqeyn la yeeshay waxgaradka iyo bulshada magaalada Timirshe iyagoona ku baraarujiyay howlgallada socda ee ka ciribtirka deegaanada Puntland firxadka argagixisada iyo muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta bulshada iyo ciidamada si looga guuleysto cadowga. ciidamada difaaca Puntland waxay markasta heegan buuxa ugu jiraan la dagaalanka cadowga iyo inay ka ciribtiraan dhulka Puntland argagixisada tamarta yar ee ku dhuumaalaysanaysa meelo yar oo ka mid ah buuraleyda Puntland. howlgalkana wuu socon doonaa ilaa laga ciribtirayo firxadka argagixisada.